بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته waxaan doonayaa maanta inaan shacabka reer Somaliland hambalyo iyo mahadnaqba u diro sidaan la socono 31kii bishii dhamaatay ee May waxa inoo dhacday doorasho aad u qurux badan oo run ahaantii shacabka reer Somaliland ay amaanta koowaad leeyihiin sidii quruxda badnayd ee nabadgelyada lahayd midnimada lahayd ee wadajirka lahayd ee ay u codeeyeen ee codkooda u dhiibteen doorashadaasi waxa ay dunida tustay in Somaliland ay qaangaad siyaasadeed ka jiro waxa ay dunida tustay in istijiidka xisbiyadu aanu cadaawad ahayn ee ay tahay in maxaan ku raahdaa marka ay danta qaranku timaado meel looga soo wada jeedsanayo la isugu imanayo waa hambalyo iyo wanaag dhammaan shacabka reer Somaliland ay leeyihiin dhammaan madaxda reer Somaliland ay leeyihiin qof waliba amaanta intii uu xaq u lahaa uu ku leeyahay hadii madaxweynaha tahay iyo hadii madaxda axsaabta qaran tahay iyo hadii shacabka reer Somaliland tahay iyo hadii acyaanta kaleba ay tahay maanta doorashadaasi waxa cad in kalsooni weyn xisbiga wadani la siiyay oo noqday xisbiga ugu balaaran ee ugu kuraasta badan golaha wakiilada sidoo kale uu magaalooyin fara badan oo caasimadu kamid tahay uu ku guuleystay inuu ka noqdo maayarkii magaalada waxa kale oo run ahaantii ay doorashadaasi ay iftiimisay in shacbiga reer Somaliland ay isbedel doonayaan in shacbiga reer Somaliland ay mucaaradnimo doonayaan fariinta ugu weyn ee laakiin doorashadaasi maanta ku jirtay waxay ahayd codkii faraha badnaa ee ay heleen walaalahay Barkhad Batuun oo loo doortay golaha wakiilada ee Somaliland iyo Cabdikariin Axmed Mooge oo maanta ah maayarka caasimadda ee Hargeysa codkaasi macnayaal fara badan buu lahaa laakiin fariinta ugu weyn ee uu diraya waxay ahayd in shacbiga reer Somaliland ay qabyaaladii naceen shacbiga reer Somaliland ay diyaar u yihiin dariiq labaad oo ka duwan dariiqii hore hadaan xisbiga wadani nahay fariintaasi shacbiga si fiican baan u maqalay waan dhageysanay waan qaadanay waan ku dhaqmaynaa hadii Ilaahay yiraahdo insha Allah hadaan xisbiga wadani nahay waxaan u taaganahay isbedel waxaanu diyaar u nahay inaan mujtamaceena reer Somaliland dhaqaajino oo hore u dhaqaajino oo xagga wanaagga u dhaqaajino oo xagga wadajirka u dhaqaajino waxa run ahaantii aan diyaar u nahay inaan horumarka Somaliland iyo xisbigaba aan ku dhisno aqoonyahan iyo dhalinyaro insha Allah hadii Ilaahay yiraahdo waxa kale oo run ahaantii guusha weyn ee shacbiga reer Somaliland ay gaadheen guusha weyn ee doorashadeeni laga gaadhay waxa maalmaha soo baxaya in ay muuqato in guushaasi ay qalindaareynayaan wasiiradii ku fashilmay ee ku guul dareystay inay codkooda shacabku maqlo inay majority helaan wasiiradii ku guul dareystay wasiirada shafalka ka baqanaya madaxweynaha sawirka qaldan ka siin jiray xaaladdu sida ay tahay isla maanta waa la idin bedeli doonaa waxaan u soo jeedinaa inay doorashada galgalashada ka daayaan waxaan la soconaa in maanta dib loo dhigay isdoorashadii degmada Burco iyo isdoorashadii degmada Laasacaanood labadaba waa laba arrimood oo aan ilaa hadda wax lagu sababeeyay iyo sabab dib loogu dhigay midna aan jirin marka laga yimaado wasiirada aan ka hadlayno galgalanaya cod laguma helo dawarsi iyo lacag codka shacabka bixiya shacbiga reer Somaliland waxa uu codeeyay mucaaradnimo u codeeyay maadaama uu mucaaradnimo u codeeyay xukuumaddu waa inay kiniinka qaraar liqdo waa inay dib isugu noqoto waa inay eegto waa inay ka fakarto sidee baad waqtiga iyo juhdiga ay geliso sidee baad kalsoonidii shacabka u kasbataa shacabkii shalay ka codeeyay sidee baad kalsoonidiisii dib ugu heshaa laakiin tiise aanay ka fakirin sidee codkoodii u iibsataa sidee dareenkoodii iyo wixii iyagu ay sameeyeen aad u leexisaa aad u iibsataa waa inaanay taa ka fakirin wasiirada taa ka fakarayaan waxaan leenahay waa inay ummadda ka xishoodaan waa inay diinta ka xishoodaan waa inay dhaqanka ka xishoodaan waxa run ahaantii iyadana dareenada sida la mid ay ka soo baxayaan degmada Oodweyne magaalada oo iyadana dib loo dhigay doorashadeedii tio aan la sheegin sabab cad oo dib loogu dhigay dib u dhigyadaasi horena boormay uga dhacday oo iyadana dib loogu dhigay sax maaha in marka xukuumaddu ay aragto in mucaaradku ay ku badan yihiin golihii waayo waa la doortay waxay ugu badan yihiin taa weeye waana ku badnaanayaan hadii Ilaahay yiraahdo insha Allah inta doorasho dambe ay dhacayso oo lagu bedelayo golo walba wuxuu noqonayaa golo mucaaradku ku badan yahay haduu ka wakiilada yahay hadday degmo doorashooyinka yihiinba
iyo magaalooyinka iyo golayaasha deegaankaba marka wasaaradda arrimaha gudaha run ahaantii marnaba soomay saarin qoraal rasmi ah oo ay kaga hadlayso dib u dhigaasi ama boorama ha noqoto ama laascaanood ha noqoto ama burca ha noqoto ama oodweyne ha noqoto inta midnaba may soo saarin sabab cad oo ay dib ugu dhigtay afka laga bedelay dawladnimo maaha dhaqan iyo curfi dawladnimona ma aha in wixii ay wasaaraddu soo saartay qoraal rasmi ah ku soo saartay haddana ay hadba ay afka ku bedesho waxaan run ahaantii ugu baaqaynaa wasaaraddu inay arrintaasi faahfaahin ka bixiso inay ka hadasho inay shacbiga u sheegto sababta ay magaalooyinkaasi isdoorashadii golayaasha deegaanka ay dib ugu dhigayso mar labaad iyo mar saddexaadba waxaan ku celinaynaa inaan golayaasha deegaanka la fadaraynin laaluushku waa fadara weeye diinteenna waa ku xaaraan dhaqankeenna wuu ku xun yahay qof maanta la doortay oo aan doonayno in uu ummadda u adeego aan doonayno inuu shacabka u adeego si uu shacabka qofkaasi ugu adeego qof lala xisaabtami karayana uu u noqdo waa inaynaan inagu xumaan ku anqarinin waa inaynaan xumaan ku bilaabin oo kala jiidashadu aanay laaluush iyo lacag la siiya aanay noqonin lacagta la bixinaya ee la siinaya haddii ay jirto waxa weeyaan waa lacagtii qarankan iyo ummadani lahaa waa lacagtii masaakiinta wax loogu qaban lahaa lacagta waxaan leenahay waa in masaakiinta loogu shaqeeyo oo wax loogu qabto si ay berrito dabadeetana haddii la yiraahdo insha Allah ay ku doortaan qofkii doonaya in ay doortaano laakiintiise in la joojiyo duwista la doonayo in la duwo dareenkii shacabka iyo doorashadii shacabka ugu dambeyntii xisbiga wadani waxa uu run ahaantii iyo xisbiga kale mucaaradkiiba ay u taagan yihiin inay golaha wakiiladana dhawaan insha Allah hadii la yiraahdo ay la wareegaan maamulkiisa iyo chairmanshipkiisaba shacabka Soomaaliland wuxuu u socdaa dhankii da'yaraanta waxa u socdaa dhankii dhalinyarada sida daraadeed waa in golaha la seexin maayo waa in golaha la keeno cid energy iyo kartidii iyo aqoontii iyo xirfadii ay ku maamuli lahayd golaha ku hagi lahayd leh hadii golaha loogu ololeeyo oo la keeno cid ay tahayd inay pension iyo nasasho gasho waxaan u aragnaa inaanay sax ahayn Cabdisaaq Khaliif waa nin Soomaaliland wax badan gashaday waa nin aqoon-yahana waa nin wadankan wasiir ka soo noqday waa nin private iyo public labadaba ka soo shaqeeyay waa nin diin iyo akhlaaq intaba leh waa nin u cuntamaya ummadda Soomaaliland isaga ay xisbiyada mucaaradku isku waafaqsan yihiin inuu noqdo gudoomiyaha golaha wakiilada ee soo socda insha Allah taasina guusheeda waynu arki doonaa aad iyo aad baa u mahadsantiin